siyaasi maxamuud xaashi cabdi oo ah mas-uuliyiinta sarsare xisbiga kulmiye oo maanta soo gaadhay magaalada boorama ayaa waxauu salaadii jimcaha uu kula tukaday shacbiga masjid jaamaca weyn ee magaalada boorama xarunta gobolka awdal waxaana salaada jimcaha kadib uu shacbiga la hadlay siyaasi maxamuud xaashi cabdi waxaana uu ka waramay maanta quruxda ka muuqata fooqiisii qiimiis aad baan furay dalbadii kale waa kaas magaalada waxaa soo fooqiya waddo iyo nimcaad 29 sano ku horba jiray magaalada waaya maaha dowlamaan keliya ilaahay waa inoo nidceeyey hargeysa qurca berbaa meel waliba way fita waana qurux badanta ilaahay aan mahadnaqo wax badanoo laga dhibani way jiraan waxsaan leeyahay shacbiga somalilan ilaahay inaynu u mahadnaqno waa wanaagsan dad baa intaa dhibanayay oo burburayay oo qaxay dadkaa ina maanta halkaa joogay eelkaa ina ka midka yahay waxay ahaayeen dad god ah oo qiimo badan oo inaga halabuur badan oo dhulka shaamri lalo ee ilaahay nimcada siiye ku noolaa waxway 11 sannadood ayay sidaa ku gaafurayeenoo baabteen waxuu ilaahay bayna xikmad wey waxaan leeyahay anigu culimada kama mid yihiin laakiin waxaan ahay dadka culimada jecel siyaasiyiinta suubane culimada suuba way jecel uxibu saalixiina walastu minhum lacallii an araa bihim shafaaca waanahu man tijaaratuhu lbidaaca man tijaaratuhu lmacaasi waynkunaa sawaan fi ridaaca sheekh cabdilaahi waxaan ka oranayaa dadka qaar waxaa laga waday cilmiga iyo gurigaa wanaagsanaya fiican ay ku barteen oo ku yaqaanaan anigu waxaan ku bartay hawl adag iyo maalmo adag iyo qax iyo baafa ayaan ku bartay isagoo labadooda isagiyo rag badan oo qiimo badan oo magaalada reer wadayaashoodii ah waxaan raggaa ka xasuustaa xaaji abubakar sheekh cumar waxaan ka xasuustaa xaaji daawuud alcilmi waxaan ka xasuustaa jaamac muuse waxaan ka xasuustaa suldaan gurey nuur waxaan ka xasuustaa suldaan sheekh muuse guunaad waxaan ka xasuustaa ragga waxaan isleeyahay malaha sheekh cabdilaahi iyo cabdilahagaala raggi ka nool waan isleeyahay anigoo nin dhalinyaro burcoon guddoomiye ka amaaya oo burcos belaysan tahay baan gurga u soo dirtay ii yimaadeen burco iyo berbera iyo hargeysa intaaba nabadbay ka sameeya dadka gobolladaa dhexe ku nool abaal bay ku leeyihin dadkaas waxaana weli ilaawin maalin jimcaha oo sheekh cabdilaahi masaajidka kacay magaalada sheekh iyadoo dadkii walaalada berbere isku dilay ay isku mari waayeen qodob ah gardarradahay idinkaana iyo idinkaana ay qaata ayuu sheekhu kacay khudbadkiiba bada ku jeeday wuu waaniyey wuxuu yidhi walaalayaal waynu isdilay waxaa qoyan dhiiggeena iyo dhagagtii dhexdeena idinkuna xabashaad dawlada geysana loo dowladii soomaaliyeed baan raa ismayna tugin ehelnimo iyo xibkiya qaraabadiina iyo waynu goyni waynu heshiino waynu nabadno waynu isa saamaxay caqliyaad ku galateen inaynu isa saamaxno waxaan ku garan weyna walaalaatiin isxiyeyna maanta aad ku heshiisaan eray qiimo weyn leh weynagaas isbedelada iyo dowladaha waxaa dhiska dadka caqliga badan leh ninkii najiib maxfuud looga jiray waa u leeyahay quriga afawlaatu yudabiruha duhaatu ثم ينفذها وينفذها الشجعان ثم يقتسمها الانتهازيون اسبدلنا الامور على يقول لها واحد نساء طبعا عقلك بدل واحد فريق سياسه وحانا ما امور فعلها كل الدكتوراه ياشا وحاولي شيخنا يا رب ويصوب اليوم
ugu dambeynna siyaasi maxamuud xaashi cabdi ayaa kulan hoteelka rays ee magaalada boorama kula qaatay dhalinyarada iyo aqooyahanka gobolka awdal waxaana iska xaalwareysteen xaalada dalka waxaana intuu kulankaasi uu socday sidoo kale aqooyahanka iyo dhalinyarada kulanka kasoo qayb gashay siyaasi maxamuud xaashi cabdi ay weydiiyeen su-aalo la xidhiidha hankiisa siyaasadeed isagoona uu siyaasigu su-aalahaasi uu ka jawaabay cabdirasaaq cumar macadowliyo telefishinka CBA boorama.